dhuldoog iyo caleen loodaadkuna qulqulayoo roobkii ku da'ayoo daara wada iftiin weyn oo dig hurdada markaan dhaho daqiiq qura inaan kaco aana abidkay doonayn doctor inaan noqdoon dadkoo idil daweeyoon diyaaradaha duulshoon hawadaa dul mara oon dabaqyaal dhistaayoon dalxiis wacanna aado dunidoo dhan wada maraan doonaa hadhiya leyl waana daalanahay oo dadaalkaygu waa eber dadow ila taliya oo dawgeen maraayoon درجة كوغارا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودو هذا خير تيدا قيمها إيا قايها لي ميلو البود شوكتان وارجينيا إنا العافي ما ضغبطان كسودو هذا برنامج كينا مانتا فوكس كيسا أيا صارت ريوينكا رجدا وحيابها إنها قلبها دقها مغلها إيا أركها إيا انتبا أرور ee habeen kasta aan ku riyoono una riyaaqno aragiisa maqalkiisa eegmadiisa iyo wixii la mid ahaba habeen kasta waxaan ku seexanaa in nolol fiican nolol wanaagsan farxad rayn dhul doogle daaqle dareemada iyo xareeda iyo roobka iyo wax walba oo daliilaqlaynayo guryo qurqurux badan muraayada leh cagaar leh iftiimaya dhalaalaya gabdho qurux badan gaariyaal qurux badan iyo waxyaabo badan oo qurux badan ama wiil qurux badan iyo waxyaabo badan oo qurux badan ay ka soo kacayaan kadibna maankeena iyo maskaxdeena iyo moraalkeena ay ku doogsato wana rajak aan aniga kaligay ahayn ee kulligeen habeen kasta iyo maalin kasta aan rajayno laakiin waxa isweydiin mudan dadaal intee leeg ayaad u bixisaa runaantii dadku marka ay duruufaysan yahay qofku ee dhibaataysan yahay ee meel wax ka bilaaba garan la yahay ee xaaladda ku cakarantahay uu isdhiirigeliya mar baan gaari doona mar baan maxay sameyn doona mar baan brada hal xaal iga ogow xaqiiqada ah meel aadan hanti gelinin oo aadan dhaqaale gelinin inta badan waxba kama soo baxayo Soomaaliya ayaa hore u mahmahday lacag ayaa lacag dhasha lacag ayaa maxay dhashaa lacag tusaale social media waa meelaha ugu dhaqaalaha yar ee lacagta la gelinayo kolka hore maxalli jira businesska lacagta lagu bilaabayo ugu yar yahay laakiin haddaad haysanin camera iPhone 11 balaaya bro iPhone 13 iyo 15 Pro Max haddaad haysanin waxaad ku duubta haysanin editor aqoonin wax ku suurtagalaya waa yar yahay aad bay u adkaanaysaa wax walba waa iska adkaanaya soo wax walba wuxuu u baahan yahay in wadadii loogu talagalay uu isticmaashid wixiisi munaasabka ku ah iyo qalabkiisina uu isticmaashid soo habeen kasta aniga waa seexda riyo fiican ayaa ku seexda riyooda maano maxalli jira meel qurqurux badan jooga ana tourism jooga dalxiis jooga ana maxal dhigi jira China maraya aniga oo maxal dhigi jira Italia badeeda xeebta ku soo dabaalanay laakiin maxay kugu taala furaashkayga ayaan ka soo kacaa subaxii anoo timahayga rafraf leeyihiin madaxayga wasaqaysan yahay foorkayga suuya adkayaabaso bismillaahi waayati so insha Allah taala kulli waa wada dadaalayna qof walba hadii aad weydiiso riyadiisa iyo rajadiisa wuxuu ku sheegayaa inuu rajo fiican nolosha kale maxaa rabtaa inaad noqotid full doctorate baan rabaa pilot baan rabaa waxaan rabaa madaxweyne inaan noqdo president prime minister wax leadership wax badan bay ku dhahayaan laakiin inta badan qof wadadiisa u sii jeeda ma jiro taasna waxyaabo badan oo ka heelinaysan dadka way jirtaa waxyaabo badan oo dadku xaqooda ka liitana waa ay jirtaa marka aniga maanta kuma dhahayo wadada hadaad marto doctor baan noqon leadership baan noqon laakiin waxaan rabaa riyooyinka iyo rajada qalbigayga habeen walba ku seexda ee hadana subaxii meel banaan ka soo tooso ma ila qabtaa taas laakiin sidee ayaan uga gudbi doonaa bal wadada aad uga kulli qof ka gudba iyo qof aan ka gudbinba qof walba wax ayaa u qorshaysan laakiin waxa isweydiin mudan wadadee ayaad maraysaa ani wada ay qorshaysan adiga teed maraysaa taada iyo tayda mid lagu guuleysan alla og sababtoo tahay laga yaabo in adiga balaan fiican tahay iga qorshe fiican tahay iga dhaqaal roonta waxyaabo badan soo noloshuna inta badan qofka opportunity-ga iyo wixii wax lagu qaban lahaa gacanta ku haya waxa ka maqan garaadkii iyo maskaxdii wax lagu maareyn lahaa qofka garaadkii iyo maskaxdii iyo horumarkii iyo fikradii ku jirtana waxa ka maqan qalabkii iyo wixii uu wax ku dhaqaajin lahaa soo nolosha ayaa saas iska noqotay nolosha dhan waa si adkaanaysa darbiyaal dhagaxyaan balaay ay sii noqonaysaa soo insha Allah taala kulligeen dadaal ayaa ina faran bal insha Allah taala bal tixyar oo dareenka iyo himilada mustaqbal ee igu jirta iyo dadaal la'aantayda iyo duruufaha jira aan ku cabirayana bal adoon itiigsan aan kugu taabtee tawaawacayga dhageyso dhuldoog iyo caleen loodaadkuna qulqulayoo roobkii ku da'ayoo daara wada iftiin weyn oo dig hurdada markaan dhaho daqiiq qura inaan kaco aana abidkay doonayn ayuu maanku doonaa
ayuu maanku doono dareenkaygu raaco waan doonayaayo waan daydayaayo dadaalkiina ma hayee dadow ila taliya oo dawgeen maraayoon darajada ku gaadhaa dunida wax kasta oo cizi iyo sharaf iyo karaamo leh ama naftu ku noolaato ama maanka iyo dhaayuhu u riyaaqo inaan noqdaan rabaa hadday caannimo tahay hadday aqoon tahay hadday darajo tahay hadday dad maamul tahay inaan yeeshaan rabaa dadaal xumana gurigayga iyo qolkayga kama soo kaco marka saasaan rabaa walaalayaal darajadana waan rabaa inaan gaadhay bal ila taliyo oo darajadaaseen ku gaadha kuwa badan oo ila midaha jira waa ogay kuwaas kuwa badan waxba ha fiirin waa la ogyahay waa isku mid baynuna walaal isku cudur baan isku kulliyad baan ka soo baxay kulliyada caajiska jiifka shaqo la'aanta dan la'aanta sheekada ayaynu ka soo wada baxnay marka waxba ha isdaalin kullu darajo inaan gaadhno waa iska adag tahay ilaahay laakiin nasiibku waa ina gaarsiin karaa kuwa badan oo inaga maalaya casasaro gaadhin way jiraan doctor inaan noqdo dadkoo idil daweeyoon diyaaradaha duulshoon hawada dul maraoon dabaqyaal dhistaayoon dalxiis wacanna aado dunidoo dhan wada maraan doonaa hadhiya leyl waana daalanahay oo dadaalkaygu waa eber dadow ila taliya oo dawgeen maraayoon darajadaa ku gaadha war inaan doctor noqdo oon dadka dhan daweeyaan rabaa inaan baylood noqdo oon maxaa la dhihi jiray diyaaradaha sa u duuriyaan rabaa yaa inaan dabaqyo waaweyn iyo dalxiisyo wacan aadaan rabaa dunidoo dhanna aan soo wada maro laakiin waan daalanahay dhibaatada ee haysta furaashkayga kama soo kacayo wax haddaan qaba isdhowaan haamhaamsi cajis jiifitaan wax iska cuno iska seexo adeeraa ku caawin doona abtiyaa ku caawin doona cid unbaa ku iman doonto niyo saan kaa bedeli doonto saan u lahaa halkaasaan ku dhintay bes 30 jir baan maraya xila ma hayo xoolo ma hayo guri ma hayo war ma isla qumin bal hadda waa yahay barnaamijkeenu intaas ku eegyahay sidaa iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu inta ila midka ina commentiga ku soo qora sidaan u dadaal lahayn wala iska rabaa commentiga ku soo qora